inaad wax qortaa ama subject aad diyaarisaa 4 shay bay u baahan tahay bay oran jireen. koow waxay u baahan tahay baa la yiraahdaa inaad topic hesho, waana masaa'isha ardadaba ugu adag baa la yiraahdaa. topic-gan aad wax ka qorayso sidaad u xadidi lahayd ee u fahmi lahayd oo maskaxdaada ugu ballaaran lahaa waa shay runtii aan fududayn. waxay yidhahdaan qoladan waxay eegaysaana waa getting birds eye bay yidhahdaan, shimbirtii duulaysay intay wax ka arkaysay waa inaad eegataa bay yidhahdaan wixii. idan waxa laga yaabaa ninka marka la yidhaahdo masaajidkaad wax ka dhigaysa ama soo diyaargarow daris baad dhigaysaa inuu is yidhahdo wartalo xagaad ka bilaabi doontaa, maxaad maanta akhridaa. hadduu maanta daris soo helo inuu berriba soo waayo cinwaan labaad oo sheego. topic-ga markaad hayso waxaa labaad ee la baadi doonaa waxay yidhaahdaan waa locate relevant information. topic-ga aad dooratay informationkii ku saabsiisnaa ee isaga ku xidhnaa inaad locate garayn karto meeshii aad ka heli lahayd. meesha aad ka helaysaa ama wax print oo la daabacay ha noqdo, bugaag iyo kutub ha noqdo, ama electronic ha noqdo waxaan iminka cajaladahan iyo cd-yadan iyo waxaan yarara tirada badan le ku jira, ama through internet databases ba ha noqdo oo searching engineska aad ku raadinayso. meesha aad doonaysa aad ka raadisida inaad locate garayn karto cinwaankan aad rabto inaad akhrido, meeshii aad ugu laaban lahayd ama maraajicda aad ugu noqon kari lahayd inaad iyana garanayso. waxay yidhahdaan waa surveying the territory. carabiga ka jilicsan be ya shayga koowaad waxa weeyaan inaad cinwaan hesho, cinwaanu dars inaad marka koowaad heli karto. shayga labaadna waxa weeyaan inaad heli karto maraajicdii ama meeshii aad ugu noqon lahayd ee aad ka baari lahayd dariska kan. mawduucan aad rabto inaad jeediso inaad sawiri karto waxay culamadu odhan jireen madhanul baxth, yacni baxdigan aad raadinayso meelaha u ah loo filayo inay wax aad wax ka heli karto inaad samayn karto. qaybtiisa saddexaad waxay dhahdaan waa analyzing the issue ama taxliil. wixii aad soo ururisay inaad xallili karto oo aad abwaab iyo canaawiin iyo qaab aad su dhinac dhigi karto. ka afraad waxay dhahdaan argumentkaagu ama doodaada inaad organize garayn karto, ama waxa aad rabto inaad siyaaq u samayn karto, inaad tixi karto oo meeshaad ka bilaabayso qaabkaad u wadayso xaggaad ku dhammaynayso inaad tixidaasi samaynayso. afartaa shay haddaad ku guulaysato bay yidhaahdaan cinwaan kasta ama deris kastoo afartaa shay aad marka hore ku guulaysato waa deris aad dhammaystirayso. marka koowaad aad topic-ga ka fekerayso, topic inaad hesho, waxaa la socda qaabkaad topic-gaasi u taxliilin doonto ama u process garayn karto inaad in badan ka fegasho. masalan masjidu tawfiiq baa lagu yihi wax ka soo qor, saidkan joognaa la yidhi wax ka soo qor. waxay dhahdaan ma waxaad u qoraysaa as a report, mise waxaad u qoraysaa as an issue analyze, mise waxaad u qoraysaa as an advocacy. saddexda shay waxay ku kala tilmaamaan. ma waxaad qoraysaa report ku saabsiisan ee masaajidkan iyo taariikhdiisa iyo reportka cid gaaraa la siiya ama dad gaar. masalan cid aan garanayn baa timi, ama hay-ad carbeed baynu wax weydiinaynaa, ama dawlad carbeed baynu wax ka rabnaa, ama dawladdaa bayna tidhi waxa uu masaajidku iyo ka warrama. waxaynu report baynu qoraynaa ku saabsan masaajidkeenna, magaciisa, taariikhdiisa, dadka ka mimbarka ah, waxa uu qabto, shaqooyinku qabto, inta saacadada u furay. waa just report. reportkaasi wuxuu ku saabsan yahay inta ugu badan la to inform, inaad cid war gaadhsiin karto, aada u gudbin karto. hadduu aanu kaa ahayn wuxuu kaloo noqon karaa bay dhaheen issue analyze. macnaheedu waxa weeyaan inaad evaluation ku samaynayso. masjidu tawfiiq baynu leenahay, muxuu wanaag leeyey, muxuu xuma leeyey, maxaa nuqsaan ku jira, waynu evaluate garaynayna, waynu taqyiiminaynaa. taqyiim baynu ku samaynaynaa maxay masaajidkii. marka waxaynu qoraynaa maxaasintiisa, waxay waxaasuu leeyey, waxay waxaasuu qabtaa, waxay waxaasuu qabtaa, waxay waxa. deetana waxaynu kaloo qoraynaa masaawidiisa iyo ceebihiisa, waxaasu ku liita, waxaasu ku liita, waxaasu ku liita, waxaasu ku liita. sababaynayna inuu waxaan ku liito waxa keenay waxa haddii la rabo markaan wax laga qabto waa intahay taa wax laga qabtaa.
inuu waxaan kale ku liito waxa keenay waxa dii la rabto waa in waxa laga qabtaa idan waa taqyiim waa sheegay aad qiimeynayso midina ka saddexaad waxay dhahdaa waa nooc min inaad difaacayso una aad doodayso oo waxa mesela masaajida la maago dawladda iyo jaraa'idka iyo waxa kan baa idin maagay report baa masaajidka qoraysaa laakiin waxaad u qoraysaa qaab argument inaad difaacdo mid waliba waxa ay keensanaysaa qaabka aad wax u qorayso ama aad wax u diyaarinayso ama wax u jeedinayso waa fikradda koowaad aad marka hore ka haysato topic-gan aad rabto inaad wax ka qorto waxaad uga jeedo mar kale markaa soo dhaafno ka waxaynu u baahannahay cinwaanka haddaad hesho inaad heli karto maadadii cinwaankan ku saabsisnayd meesha aada ugu noqonaysay ama buga ka noqoto ama waxay doonto ha noqoto waxaa laga yaabaa madaanu lxadiid ama madaanu lbaxthi waxay dhahdaan wax fudud maaha inaad suurayn kartaa in badanna waxay u baahan tahay inaad waxaan experience u leedahay masalan qaad baa la yidhi wax ka soo qora qaad ayaa lagu yidhi wax ka soo qor had fikirto waxaad tidhi oo kitaab talow 2-3 kitaab baad soo hesho qaad wax ka tilmaamaya laakiin waxa isweydiin la qaad xageeba wax lagaga qoraa waxaad ka fakaraysaa kow narcoticska iyo cidda wax ka qortay ama United Nations ha noqdo ama dawlad ha noqdo ama waxaas ha noqdo hay-adkooda narcotiga iyo meelaha narcotiga waxa lagu qoriyo waa madaan aad u fakari karto inaad ka baadi doonto qaad waxaad raadin kartaa qoladan pharmacology-ga iyo dawooyinka iyo dhirta wax lagu daweeyo iyo dhirta sunta iyo dhirta aan sunta ahayn iyo waxa ka warrama waa madaan kale oo aad cilmigaasi ka dhex baadi doonayso oo aad ka raadin karto waxaad ka raadin kartaa intaad fakarto culture-ka ummadaha marka laga warramayo waxa laga yaabaa East Africa oo dhan culture-keeda iyo dhaqankeeda hadii Yemen laga warramo inaan qaad ka baxaynin marka cid kastoo dhaqanka Yemeneed iyo taariikhdeeda iyo wax ka warrantay waxaad ka garanaysaa qaad inuu meelun kaga jiro aanu ka baxsanayn waa madaan kale aad ka soo heli karto waxa laga yaabaa inaad ka heli karto madaan ku saabsan dhaqaale iyo wax la nooca waayo wadanu u yahay wax soo saarka ugu tirada badan leh oo ka soo saaro idan waxa meeshaad ugu noqonayso marjacu waa meel runtii u baahan inaad maskaxdaadu ballaaran tahay oo si ballaaran aad wax u eegi karto si aad u garan karto information-kaasi meesha aad ka raadinaysaa meesha ay tahay waxa kaloo intaa yara khusaysa waa general theories-kii baan wali tilmaamaya intaynan tegin kitaabka iyo sunnaha waxa intaa raacda waxay yidhaahdaan assignment-kaasi aad wax ka qorayso inaad uga fakerto isaga kow audience-kiisa dadka ku dhageysanaya hadhow wax aad u sheegayso iyo danta laga leeyahay saddexdan shay waxay xukumaan waxa aad jeedinaysaa ama waxa aad qoraysaa sidoo yahay masalan purpose-ka danta laga leeyahay qoraalkan danta